السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم كسو دواها جنال كسويال كميديا قدبدين وين مانتو waxay kala yihiin Axmed Madoobe mucaaradka Jubbaland oo heshiis gaaray madaxda sare ee dawladda federaalka oo shacabka u diray hambaliyo ku aadan bisha Ramadaan oo xalay laga arkay Soomaaliya iyo Kenya qodobadaas oo faahfaahinaya ku daawan doontaan wararkeena magacaygu waa Maslax Nasiib fadlan hadan u cusub tahay channelkan subscribe noo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinada ugu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe iyo qaar kamid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeday ee la baxay isbedel doonka Jubbaland ayaa shalay heshiis u gaaray magaalada Nairobi kadib hadallo muddo socday heshiiskan ayaa garwadan ay ka ahayd dawladda Kenya ayaa waxa kala sixday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Cabdinaasir Seeraar Maaxi xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo labaduba sheeganayay madaxweynaha Jubbaland iyo Daahir Sheekh Axmed sida ku cad qodobka ku qoran nuqulka heshiiska xubnaha isbedel doonka ayaa aqoonsaday doorashadii Kismaayo ka dhacday bishii Agoosto 2019 ee madaxweynaha lagu doortay Axmed Madoobe waxaa sidoo kale lagu heshiiyay madaxweynaha Jubbaland uu xilka u tartami karin wax ka badan 2 goor sida ku cad qodobka 70 ee dastuurka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa markii labaad loo doortay bishii Agoosto 2019 heshiiska ayaa waxaa sidoo kale ku jira in madaxweyne Axmed Madoobe uu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay qayb ka yihiin golaha isbedel doonka Jubbaland dhinacyada ayaa u baaqay beesha caalamka inay taageerto heshiiska ay gaareen kana caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed bilaabashada bisha barakeysan ee Ramadaan madaxweynaha ayaa xusay fadliga bishan barakeysan iyo maalmaha xurmada badan wuxuuna Alle ugu bariyay inuu naxariis iyo nimco ku maneysto dalkeena iyo dadkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ku baraarujiyay halista caafimaad ee ku xeeran dalkeena oo ah mid aan la dheelsan karin maadaama tirada dhimashada iyo bukaanada uu soo ritay cudurka COVID-19 ee aad u korortay sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay bilaabashada bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo Alle uga bariyay in cudurka halista ah ee COVID-19 uu ummadda ka dulqaado ra'iisul wasaaraha ayaa ku baaqay in dadka Soomaaliyeed ay iscafiyaan lana gargaaro dadka danyarta ah ee caawinaad u baahan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in maanta oo Jimco ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan lagana arkay gudaha dalka sidoo kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga arkay galbeedka magaalada Wajir ee waqooyi bari ee Kenya sida uu xaqiijiyay Sheekh Maxamuud Sheekh Shabili oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyadoo dunida ay la tacaalayso cudurka COVID-19 qaab kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in sadaqada iyo taageerada dadka saboolka la badiyo inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan guud ahaan masaajidada caalamka ayaa xiran si looga hortago cudurka COVID-19 iyadoo hay'adaha u sareeya culimada Sacuudiga ay sheegeen in aan salaadaha Jimcaha lagu tukan doonin labada xaram ee Makka iyo Madiina iyadoo ummadda Islaamka ugu baaqay in guryahooda ku tukadaan guud ahaan taas ayaa ku soo gabagabeynaa wararkeena warka xigeenta kulmid oo waaniga Maslax Nasiib sidaas iyo amaana Allah